kulan wacan daawada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada iyo sidoo kale update kale xiisaha leh marka la soo kordhay kuwaas oo aan mar kale waad la wadaagi kartiin daawadaashina ku taxambarta tusmada filmada meel walba oo joogtaan habeen wanaagsan warbixintan waxaan ku bilaabi doonaa jilaaga Heritage Roshan ayaa markan qalabkiisa jimka wuxuu ku wareejiyay qolada Azam ee xerada Jasbur Airbase kuwaas oo markuu soo gabagabeeyay jadwalkiisa film duubista ee qaybta Azam ayaa wuxuu qalabkiisa oo jirdhiska uu ku wareejiyay dadka halkaasi ku sugan gaar ahaan ciidamada qaybta hawada. Bold actor Heritage Roshan ayaa markan waxa uu gudagalay duubista mashruuciisa Fighter kaas ee bishii November ee sanadkan waxaana filmkan soo socdo yahay mid markaan aqoon doona film uu yahay filmka ugu horeeyay kaas lagu soo bandhigi doona filmada action-ka dhinaca hawada kaas oo sidoo kale noqon doona film dib loo midoobo doona director-ka uu sameeyay filmka War ee saddexaad aanan waxay wararka sheegeen Heritage Roshan filmkaas oo kala soo muuqan doona Deepika Padukone iyo sidoo kale Anil Kapoor waxaana sidoo kale markaan uu yahay mid jadwalkooda qaybta Azam Airbase ee Jasburna ay ku qaatay muddo 10 bari kaas oo halkaas ku soo duubeen muuqaalooyin action iyo kuwa dareen leh markaan wararka ugu dambeeyay waxay sheegaan in Heritage Roshan qalabkiisa jimkana oo hadii ahaan uu siiyay ciidamada ku sugan qaybta Azam ee xerada Jasbur sida qorta Bengal Villa ayaa waxay sheegayaan in jalaagan uu soo gabagabeeyay duubisiisa qaybtaas ee Azam. Heritage Roshan ayaa markaan wuxuu qalabkiisa jimkana uu siiyay qolada maamulka ee ciidamada officerka ee qaybtaasi wuxuuna soo kale sheegay in jaceelkooda si kala soo dhaweentooda uu qalmeen in qalabkaasi lagu wareejiyo waxaana sheegeen in Heritage Roshan had iyo jeerna uu yahay mid qalabkiisa jimka u qaato halka uu ku duubo filmada kuwaas oo san rabin jalaaga inuu kala dhaco soo kale oo halkiisa ka sii wato jirdhiskiisa taas oo markaan keentay in qalabkiisa oo uu siiyay jirdhiska qolada halkaas ku sugan ciidamada kuwaas oo ay ka madcaliyeen kadib markii uu soo gabagabeeyay jadwalkiisa qaybta halkaasi sida ku rameen qolow dhow qaybta Azam. wararka soo intaas waxay ku darayaan in qalabada ay ka koobnaan kuwa lugaha lagu dhiso kuwa garbaha iyo soo kale kuwa kale ee xabadka lagu dhiso waxaana soo kale jalaaga mid uu siiyay iyagoo sidoo kale markaan ay kaga mahadceliyeen. Heritage Roshan ay doorkiisa filmkaas wuxuu yahay mid ku dheeli doono mid ka tirsan ciidamada cirka ee Hindiya kaas oo sida aan filmka director-kiisa Heritage Roshan ayaa arrintan ka hadlay mar wuxuu sheegay inay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan isoo kale tahay fursad uu soo mara taas oo xil walba isku dayay in mar uu gaaro waxaan rajaynayaa uu sheegay inaan sii wada doono inaan sameeyo filmooyin sidaas u fiican kaas aan ku raaxaysan doono ayuu sheegay jaceelka xaqiinan ka helayo taas ayuu ka sheegay arrintaasi xil ka qayb galay Darasi International Film Festival kaas oo Sacuudi lagu qabtay filmkan waxa lagu wadaa in la daawado January 25keeda ee 2024 filmkan Fighter waxa la hogaamin doona Deepika Padukone soo kale Anil Kapoor filmkan wuxuu mid action xagga cirka lagu soo bandhigi doono kaas oo markaan filmada 2024 filmada aad ku xiisaha badan ee loo suugay uu yahay filmkan ay kul hor lagu wada in 23 la daawado asaate baaqasha ayaa filmkan ku timid markaan Heritage Roshan ayaa wuxuu diiradda saaray filmkaasi filmka lagu daawado Heritage Roshan ugu dambeeyay wuxuu ahaa film Fighter kaas oo loo Saif Xalqaan filmkaasi ayaa san wacdar ka dhigay qaybaha tiyaatarada asagoo rajo weyn naga lahaa filmkan ay wuxuu ahaa film reer Tamil kaas oo kala hore u sameeyay Armaadavan iyo sidoo kale jalaaga laftiisa tabati kaas oo qaybahaasi hit ka noqday markaan ay Hindi dib u sameeyeen asaati way ku filad garoobeen oo way qaad waayeen wadada filmkaas reer Tamil qaasiyeen ee kaas oo halkaas uu ka noqday film guuleystay intaan ku soo xirnay muuqaaladan dadka shaleega noo saarso kala saxaabtada la wadaag cod ku maasintiin alaabsan noo dhiirigelisaan muuqaaladan u daawatan kankiisa xigana nabad galiyo.